qaar ka mid ah waxgaradka iyo odayaasha ku dhaqan degmada Wanlaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose oo maanta kulan halkaasi isugu yimid ayaa waxay uga hadleen doorashooyinka maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. ulajeedka isu imaatinka odayaasha deegaanka iyo waxgaradkuba waxaa lagu sheegay inuu ahaa mid taageero loogu muujinayay musharax muqtaar Roobow oo ka mid ah musharaxiinta u tartamaya jagada madaxtinimada ee maamulkaas. wariyahayaga Mahad Axmed Cali oo Wanlaweyn uga soo warrama RTN ayaa warbixintaas inooga soo diray. kulan ay isugu yimaadeen qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka iyo nabadoonnada degmada Wanlaweyn ayaa waxay taageero ugu muujiyeen musharax madaxweyne ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya muqtaar Roobow waxayna xildhibaanada Koonfur Galbeed uga baaqeen inay codkooda siiyaan muqtaar Roobow marka la gaaro xilliga ay dhacayso doorashada Koonfur Galbeed Soomaaliya. way lahaa hadii uu odayaalkii dhaqanka giraadka malaaqa nabadoonnada way sheegaanee dawladda Koonfur Galbeed qaas ahaan xildhibaane digil iyo mirifle way sheegaanee inay rabitaanka bulshada ay ka shaqeeyaan oo taageeraan muqtaar Roobow xildhibaankii oo digil iyo mirifle oo Roobow taageero waayo xildhibaan uu noo tirsan ma ah dadna matalaw ma ah qaas ahaan way lahaa xildhibaane shanta caleemood inay taageeraan Roobow bulshada Wanlaweyn Roobow waa fadoyte dhibaana ka jira dhibka ilaaha dadku biyo kore Roobow inuu noo biyo maleysana ilaahay garabshay Allah galo hal taageero Roobow hal taageero waa nin qadiyad leh wadani ah ninkii beesa qaado beesada qaado laakiin maalintii aad geega ma infidina inuu ku hadalno wayna fidina degmada Wanlaweyn iyo fidina insha Allah ta'ala ما إشياعنا حلواندا أو كوفر قلبات دقل إمرفلة إني جيجا إن شاء الله تعالى ننكي ودنك أو جيجا كوفر قلبات أو سمت بحي كرة إني معناها جيجا فيرم وين والدان إن شاء الله تعالى عين جعلنا ننكاسيتا هذا تاجرد انفديان مقتار روبو إن ستوسة أتكلينسيو ومدن إن شاء الله تعالى كي أو جيجا والقبض اللهاي oo dalka iyo diinta iyo dadka buulan qabada laha ilaahay ku dhigo dhamaan ay kala salaamaane inta musharaxiinta Koonfur Galbeed dhamaantiyo jecelna laakiin geega insha Allah Koonfur Galbeed ma baahantaa lan oo meelan ku samata bixi oo waqtiga had ii taagan walaalayaal ana geeg oo ka dhaqanka degmada Wanlaweyn caleemadii oo aan kolomsana way soo kolomnay fikir kaanu am akhlaaqana inaan cabirno iyo inta soo kolomni ilaan wali oo jacalna inaan dadka oo mana mas'uuliyiinta oo sharafta leh Koonfur Galbeed digil iyo mirfan inaan jaclaadaan iyo mana soo fadhaani way anagoo ah garaad Abdulqaadir garaad Roobow garaad Yuusuf oo garaadka degmada Wanlaweyn way taageersanaa muqtaar Roobow Ali Abu Mansuur iyo taageersanaa waana ka taageernay diinta asluubta geesinimada dadnimada iyo ka taageerni maalin walba dadkii u sheelay Marookorno ahsan suubiya xildhibaanada oo maanaas ku jeedaan oo shanta caleemood ama iska digil imrif ku jeedaan ilaahay ku absada rasuulkeena rumaaya ninkaas waa ina cod buu siidaan iyo maana geeg maana siintawiyaan way la warameeyay dhamaan xildhibaanada beelaha digil iyo mirifle ee ka sugan Koonfur Galbeed hadda horna warame haddana ka naqsadee ana way siin sheegaya haddii odayaashii dhaqanka beelaha digil iyo mirifle way siin sheegaya in isin doorataan qof oo walqabadka leh oo meel dadnimada leh oo meel dadshii diintiis dalshii kasaw lan sharayki kooye beese ina usu dhiibo madax usu nagado ama beese siinsiga madax nagado hadhowtii beesidii siinsiga sunku goosade ani runta siin sheegay dadkiin walaaniin qabadaan dalkiin walaaniin qabadaan beesidii sunku shaqaysa shaqooki nin isin hadda beese siin kada madax musiin nagadaaw madaxna ma madaxna man muksugal مسؤول هو باسم مديباو باسنا مكة كوين أني إنوردن عد كانوا إنكوردن عد كانوا يك عمر فرنسان اللي بانكي باسا عمر لسكسي أما اللي ينبلن قاضي أو قاضي ذو اختيار كباسدي هذا قاضي تماماسو
إلهي أكيديني دونتا كيم فدرس ولا لو باسمل كسياو باسدا دلكا يددكا وكو خلاص بري خلاص مسور روبو نين دوروي دانتا ددكا iyo dadweynaha iyo diinta ku fikirneen wal qabaneen baaqan ay soo jeediyeen odayaasha dhaqanka iyo nabadoonnada degmada Wanlaweyn ayaa wuxuu ku soo beegmayaa xilli la filayo in dabayaaqada bishan ay dhacdo doorashada maamulka koonfur galbeed Soomaaliya oo ay ku hordamayaan musharaxiin tiro badan Mahad Axmed Cali Mahad Sheekay RTN TV degmada Wanlaweyn gobolka Shabeellaha Hoose